ku soo dhawaada codka ubax. kusoo dhawaada codka ubax. Codka Ubax, a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most. wacyigelinta, arrimaha sugaanta, Culture, then the voice of storytellers. asalaamu calaykum, kusoo dhawaada codka ubax ood ka daawanaysaan bogga youtube-ka, sidoo kalena aad ka dhageysanaysaan adeega podcast-ka. maanta waxaa barnaamijkani ku saabsan yahay buug codaysan ama buug aan codayn doono. buuggan magaciisa waxaa la yidhaahdaa Gaax. buuggan aniga ayaa qoray. waa buuggii afraad ee aan soo saaro. waxa uu soo baxay daabacadiisii koowaad sanadkii 2017. daabacadiisii labaad waxay soo baxday sanadkii 2018. buuggan waxa uu ka hadlayaa sida buugga xagiisa dambe ku qoran sida soo socota. Cali waa nin Oromo ah oo Hargeysa degan. subax kasta guryaha ayuu qashinka ka qaadaa. guryahaas mid ka mid ah waxa ku nool Hodan. Cali waxa uu aad u jecel yahay Hodan, balse uma sheegi karo. subaxii uu go'aansaday inuu dareenkiisa gudbiyo ayaa laga qabanayaa suuqa dhexdiisa. muddo yar kadib waxa uu saaran yahay baabuur ay ka buuxaan Itoobiyaan kale, waxaana loo sii wadaa dalkiisii. dawladdu way ka hiilisay, balse go'aankiisu ma ka hiilin doonaa. Maryan waxa ay barbaartay xilli laga soo kabanayo dagaalkii labaad ee adduunka. ninka cad ee dhulkeeda jooga ayay dunida ugu nacab tahay. caawa oo ay bishu noqon doonto 26 waxay u soo taagnaan doontaa marka la saarayo calankii u horreeyay ee xor ah ee dhul Soomaaliyeed laga taago. sidaas si la mid ah waxa caawa calankiisa ka taagi doonaa wadnaheeda Xaamud. Sahra waa gabadh ku dhalatay galbeedka London. guriga ay degan tahay waxa ku kulmay nasiib darrooyinka noocyadooda kala duwan. masiibooyin ka culus lafaheeda dhowr iyo 20 sano jiray ayaa dusheeda saaran. si ay ilays u hesho waa inay ka tagtaa wax kasta oo ay taqaanay. sheekadani waxa ay ku saabsan tahay 3 qof oo ku nool xilliyo kala gidisan, waayahooduna uu kala duwan yahay. sidaas oo ay tahay, 3dooduba waa ay iska xigaan dadka kale, balse midkoodna ma oga. Gaax qaybtii koowaad. cutubka koowaad. Cali sigaarka oo gaadhay halkii uu ku kala bakhtiisan lahaa si uu hadhow dib ugu shido ayaa debnihiisa si dabacsan u sudhnaa markii ay cagihiisu jidka ay yaqaanaan tuurihiisa dul tallaabsanayeen. shaqo uu mar dhoweyd uu bilaabay ayaa sugaysa inuu dhammaystiro. 5 guri oo uu kii Hodan ka mid yahay ayaa u harsan. isaga, wadaha baabuurka oo Xamse ah, iyo Axmed ayaa hawshooda watay markii ay Cali xaraaro xumi qabatay. in door ah ayaa uu ka soo lugeeyay bartii baabuurku yaalay si uu dhowr xabbo oo sigaar ah ugu doonto goodhida yar ee wadada cidhifkeeda ka soo jeeda sidii ilmaroodi. waa xaraaro maanta aayihiisa saamayn ku yeelan doonta. caadi ahaan Cali hurdada kuma noqdo salaada subax kadib. istaanka basaska ee xaafadda Jigjiga yar dhankiisa bari ayuu ka soo kallahaa. waa Cariish markii uu dhisayay ay hooyadii isku khilaafeen dhanka loo jeedinayo iyo dhararkiisa. iyada oo hurda ayaa uu ka soo baxaa. birta laga gooyay foostada ee kadinka lagu awday ayuu kor u qabtaa inta aanu soo jiidin ka hor. waa dabeecad uu yeeshay sidii uu hooyadii uga ilaalinayay inay ku toosto sanqadhiisa. suqdoodyada uu mugdigu hadheeyay ayuu garasho hore darteed ku soo dhex maraa. way dhacdaa inay kolba ood yari meel ka qabsato, mase arko inta uu nabarku la egyahay ilaa uu masjidka soo gelayo. saaka wax 3 xariiq oo yaryar aan ahayni ma soo gaadhin. waxa ay la falgaleen 1 dakhar oo iyaga ka horreeyay. midabka cas ee ay kaga duwan yihiin marka laga tago ma qaloonayaan. inta badan dadka oo dareeray ayuu sii fadhiyaa. dadku waa in gacan qaata, in garabka ka taabata, iyo in sheedda uga gacan haadisa. waa dad aan 20 gaadhin. qofkii maalin la waayana la tabo. marka ay sanqadhu sii go'ayso
dadku dhanka albaabka u dhaqaaqaan ayuu abuurihiisa gacmaha hoos qabsadaa. Maalinna ma iloobo, maalinna kama degdego. Lama maqlo, mana aamusna. Saaka waxa aad mooddaa inuu ku dheeraaday. Khadar oo kitaabka ku foorara ayuu sii salaamay. Intii aanu kabaha ay sartoodu shaaga ka samaysan tahay sii tiigsan. Waa sheekh uu jecel yahay codka uu ku tujiyo subax kasta. Dunidii dhibka badnayd ayuu u soo baxay. Isaga oo sidii alla faray qaraab doonanaya. Waa waqtiga uu maalinta ugu jecel yahay. Waajib ayuu iska soo riday, mid kalena wuu u socdaa. Laydh sanbabada u roon oo aanay cid kale weli qaadan ayuu laabtiisa ku ciyaarsiiyaa. Shabaqdu waa ay yar tahay. Welina buuqii ma bilaabmin. Balmay sidan iska ahaata magaaladu ayuu hoos u yidhaa. Waaryaa Cali, in yar isugu walaal wuu karayaaye, iska fadhiiso, saaka hurdada ila tagtaye. Waa Sahraa oo saaka la daahday shaahii. Waa makhaayad ka weyn gurigiisa iyo oodiisaba. Subax kasta koob qiiqaya ayuu ka sii cabbaa. Waa mid ka mid ah makhaayadaha ugu dadka badan ee istaanka basaska. Codkeeda ayaa soo gaadhay dhigihiisa markii ay indhihiisuna ku dhaceen Naasir iyo saaxiibkii Cabdilaahi oo sidoodii kaftan la diyaar ah. Waa aadi walaal, waxba ma noqonayso, way sugaysaa, ayuu u celiyey. Isaga oo lugba meel dhigaya. Xabad sigaar ahna rabaa in uu ololiyo. Waxa uu arkay inay tahay xabaddii u dambaysay. Si kasta oo uu jeebadda u baadhayna waxba kama uu helin. Naasir iyo Cabdilaahi waa laba basle oo ay Cali saaxiib yihiin, kaftan wadaagna yihiin. Saaka labadooda ayaa isku mashquulsan. Calina marka horeba wuu baxsanaa. Bariida guud mooyaane wax kale isma ay weydaarsan. Sigaarka oo gaadhay halkii lagu bakhtiinayay iyo shaahii oo bislaaday ayaa mar ku kulmay. Galaankii wuu guddoomay. Sigaarkiina wuu sii watay. Jabka uu reebanayo inuu calfan doono ma hubo. Xamse iyo Axmed ayaa ka horeeya. 500 oo ka mid ah 2,000 oo uu hooyadii kala soo hadhay markii uu lacagta inteedii kale dhigta dhabarkeeda u gelinayay ayuu u dhaafay Sahra oo maanta xiiqsan. Bartii uu gaadhigu ka qaadayay ayuu u soo lugeeyay. Waa la sugayaa. Hore ayuu ka fuulay. Waxa shookaanta haya Xamse waa magaca ay Soomaalidu u taqaano ah. Xamse 50 ayuu kor u dhaafay. Waa qunyar socod khibrad ahaan ka horeeya Cali. Walow uu dalka joogay 4 sano oo kaliya, haddana magaalada baabuur ayuu ku dhameeyay. Suriye kasta wuu qaybay. Hadalkana ma badiyo. Kalsooni darro uu ka qaaday inuu khalad ugu dhawaaqo ereyada iyo isaga oo marka horeba aamusni u dhashay ayaa isugu biirtay. 2 sano ka hor markii ay shaqadan wada bilaabayeen, isma ay lahayn heerkan ayaad ka gaadhi doontaan. Heer ay ku qasbanaadaan inay qof kale shaqaalaysiiyaan si ay macaamiishooda u raaligeliyaan. Taasi waxa ay keentay in 2 bilood ka hor shaqada la qoro Axmed. Axmed waxa adeer u ah Xamse. Markii ay shaqaale u baahdeen ayuu Xamse uga yeedhay Jigjiga oo uu kaariyoon ku shaqaysan jiray. Himiladoodu ma gaabna, hankooduna ma yara. Cali oo ah maskaxda ka dambaysa shirkadoodan ku kooban baabuurka dushiisa ayaa subax kasta ku ducaysta inuu Rabbigu ka ilaaliyo wax kala tuura. Ducadaas aqbalkeeda war ayaa ka taagan. 50 tallaabo kadib haddii uu midig u leexdo waxa u muuqda baabuurkii uu wax yar ka hor ka yimid si uu 5 xabo oo sigaar ah uga soo iibsado goodhidan yar. Halkaas oo ay ku sugayaan labadiisii saaxiib. Balse weli gooladda ma uu gaadhin markii uu maqlay guuxa iyo sawaxanka ku soo dhawaanaya. Waa goob sideedaba buuq badan, xilli dadku ugu dhaqdhaqaaq badan yihiin iyo gooladda weyn ee shacabka Hargeysa. Cadceedda oo dhabanka bidix ka dhalaalinaysa ayaa aad mooddaa inay u sheegayso wax aanu ogeyn. Waxa uu ku soo jeedsaday 2 askari oo ka soo boodaya baabuur garabkiisa weli aan istaagin. Shalay ayuunbay ahayd markii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inay Oromadu waddanka kaga baxdo si dhaqso ah. Go'aan laydh cabsi iyo mugdi wadata la dhex qaaday bulsho iyo beelo si nabad ah u degan, noloshoodiina markii ah afgambi u rogay. Ilaa shalay dadku way qaxayeen. Dhul ay sababo kala duwan uga yimaadeen ayay niyad jab kula noqonayeen. Dhul ay naf soo moodeenna waxa ay kala tageen qalbi culayskiisa aanay qaadi karin. Cali waxa uu la degan yahay
hooyadii oo aad u da' ah. Maalin oo dhan shaqo ayuu ku maqan yahay. Habeenkiina waxa uu soo hoydaa isaga oo dawooyin, lacag wixii uu soo helo, iyo nafar garow ah oo ay aroorta ku quraacato u sida. Wuu seexdaa, haddana halkii ayuu berri ka bilaabaa. Waa nolol fudud, fursadaheeduse ay yar yihiin. Xalay way doodeen, su'aalo badanna isweydiiyeen. Warwar badan ayaa weydiimaheeda ku lamaanaa. Jawaab uma uu haynin. Wuuse ku qasbanaa inuu calool adayg u muujiyo. In aanay meelna tegayn ayuu u sheegay. Cidina wax yeeli karin, Ilaahay mooyaane. Wuu ogaa inay ballan beena tahay, wax walbaana dhici karaan. Markii la qabtay ayay rumowday cabsidii maanta dhan garbihiisa saarnayd. Mar keli ahna uu caadi ku soo noqday. Wuu gartay waxa socdaa. Wax hadal ahna kama uu keenin. Baabuurka dhakadiisa ayaa si degdeg ah loo saaray. 12 ay qaarkood ooyayaan ayuu dhex fadhiistay. Mid kasta waaye gaar ah ayuu leeyahay. Jihaad keligii u gaar ahna wuu ku jiray markii aan saaka la soo qaban ka hor. Waxa uu isweydiiyey qof walba dadka uu ku xidhnaa ee aanu galabta arki doonin. Qaar baa carruura leh, caawana aan la seexan doonin. Wejiyadooda ayaad qof kasta ka akhrisan kartaa taariikhda ku xardhan. Murugada wejigooda ka muuqata ayuu u kala saari waayey inay tahay waayidda noloshii ay ku soo jireen wax yar un ka hor, iyo cabsida midda lagu celinayo ee aanay waxba ka garanayn sida ay ula dhaqmi doonto. Caawa waxay cuni doonaan, berri meel ay nolosha ka bilaabi doonaan. Isagu markiiba waxa uu xasuustay hooyadii, cidlada ay caawa seexan doonto, sida ay u sugi doonto wiil aan u iman doonin. Laakiin waxaas oo dhan waxbaa kaga daran. Cali, hodan baa dhibaysa. Cutubka 2. Sahra. Cirka hooraya ilaa daraad ayaa la damqanaya qalbigeeda. Goorma ayay noloshu sidan oo dhan u adkaatay, ayay isweydiinaysaa. Sidee ayay waayuhu sidan oo dhan isugu bedeli karaan muddadan kooban? Sannad ka hor maanta oo kale way qoslaysay, noloshana waxba kama ay dhinnayn. Mugdiga Noofambar ayaa hareeraha ka fadhiistay. Walow ay tahay galab, saq dhexe ayaa la moodaa. Dabaysha sida mindida dhabankeeda u saraysa ayaa u dhaafaysa qofka xiga, si ay kaasna diirkiisa ugala baxdo dux wixii ay ka hesho. 2 xadhig ayaa dhegaha uga laalaada. Way maqlaysaa farriinta u soo dhacday, balse gacmaheedu ma karayaan inay tamar ku bixiyaan soo saarista telefoonka. Ma joogto maskaxdeedu. Indhuhu way furan yihiinuun. Cagaha oo ah kuwa muddo badanba hagayay ayaa dhex mushaaxaya badweyn dad ah oo guryahoodii u yaacaya jidweynaha Charing Cross Road ee bartamaha London. Caadi ahaan 6 galabnimo ayay soo baxdaa, laakiin maanta markii ay jabisay quraarado sharaab ah 3 jeer oo isku xigta ayaa la soo fasaxay. Toddobaadkan ayuunbay ku soo noqotay shaqada. Weli iyadii ma aha. Weli Sahradii la yaqaanay ma aha. Ma garan karto inay noqon karto. Inay weligeed sidii baryaha qaar u farxi doonto, u sheekayn doonto. Baryaha qaar hadalkeeda ayaa lagu qosli jiray. Dadku way u soo kala dheerayn jireen. Ma ay mari jirin jidka ilaa iyada oo farax ama canab la hadlaysa mooyaane. Codkii dheeraa, ilkihii muuqan jiray, gacmihii ay warfin jirtay, dhammaan gabbalbaas ayaa u dhacay. Jidku wuu toosan yahay, garbaheedu way fooraraan. Wax aan la arkayn ayaa kor u haya, wax ay keligeed u jeedo. Sidee ayay ku dhacday in iyada oo loo dhalay inay beeraha raxmadda ka batoriso ay caawa suuqyada murugada ku cawayso? Si aan mugdi ku jirin ayay u xasuusataa kulankoodii koowaad. Daraarihii wacnaa, ayaamihii farxaddu jidhkeeda miisaanka ka qaaday, maalmihii wixii la yidhaahdaba ay ku qosli jirtay. Berigii ay sida dhallinyarta u fikiri jirtay intii aanay qofka kale noqon. Caways ay magaaladu roob ku maydhatay ayuu ahaa. Dadka ilaa madaxa ayaa duubnaa. Farax oo maalmahaaba dabada ka waday ayaa soo qasabtay. Iyada iyo canab ayaa u yimid. Guriga Sahra ayaa laga labistay. Waqtiga intiisa badan qosol iyo sheeko ayaa lagu qaatay. Sheeko aan la iska sugayn. Hal mar la wada hadlayo
haddana la ismaqlayo. buuqaasi gacmahooda kama lumiyo jidkii ay u mari lahaayeen marka ay rinjiyeynayaan dhabanadooda. Naama maqasheen heesta cusub ee The Weeknd? Waa farax oo aad moodo inay la hadlayso dadka waddada maraya kuwa ka shisheeya. Way ku guulaysatay inay soo jeediso laba isku qaylinayay. Way ku qasban yihiin. Dhawaaqa farax ma aha mid loo adkaysan karo. Halkaas ayaa lagu tartamayay qofka xafidsan erayada ugu badan ee ka soo baxa afka yarka aan warkoodaba haynin. Canab ayaa bannaanka u soo baxday. Farax iyo Sahrina way ka dambeeyeen. Meesha la tegayo waa la garanayaa, lamase sheegayo. Habeen sidan oo kale ah, filin ayaa la soo daawadaa ama waa la soo casheeyaa. Marka uu jeebkoodu ladan yahay, labadaba way isku daraan. Kolba mid ayaa la horreysiiyaa. Caawa Canab ayaa ku qoran. Waa habeen Jimco ah. Maanta ayaa mushaharkii la siiyey. Intii ay reerka siisay mooyaane 50 gini ayay la hadhay. 40 ka mid ah 40 daqiiqo kadib ayaa la waayi doonaa. Meeshii lagu bixin lahaa ayay sii gelayaan. Waa meel iyaga ku cusub. Talada Canab lafteeda ayaa lahayd. Waxa ay ka mid ahayd sababihii ay Sahri u soo raacday. Makhaayad cusub in la soo tijaabiyo. Bakayle ayaa lagu dubaa, waa sida ay Canab tiri. Lug ayay ku yimaadeen. Meeshii ay Canab maanta dhan ka sheekaynaysay ayaa albaabkeeda la taagan yahay. Weli ma ay gelin. Weli Canab ammaantii ma ay joojin. Dabcan iyada ayaa u horgashay. 5 daqiiqo waxaan gaarin kadib bannaanka ayay qosol rafanayaan. Su'aalaha la weydiinayo ayaa ka badan jawaabaha ay hayso. Canab wax ay ku hadasho ma garanayso. Goobtu waa baar gaayada lagu cabo, khamriga lagu fuudo, xashiishadana loo hoos raaciyo. Markiiba sida loo soo dhaweeyay ayay ka garteen in aanay xaaladdu caadi ahayn. Hablo baadi ah inay yihiin. Indhaha dadka meesha fadhiya ayaa laga akhrisan karayay. Kursi fidsan oo ah nooca buushka ah ayaa farta loogu fiiqay. Mid gaaban oo timihiisa jilicdasan, dhakadana ka sii yaacaya, biyo ku soo nabay ayaa hagayay. Ma ay degdegin, welise waxba ma ay fahmin. Way fadhiisteen. Warqaddii dalabka ayuu u qaybiyey. Sahra ayaa isha marisay. Wax bakayle la dubay u eg ayay ka weyday. Si dadban ayay kuwa kale u eegtay. Canab hadalkii way joojisay mar horeba. Farax ayaa qosol ku dhufatay. Oh my God, nawaaxi waxan. Sahra ayaa dib u eegtay. Gin and tonic 5 pound iyo badh ayaa u sarreeya. Wax aan la garanayn ayaa ka hooseeya. Hadalka ayaa kala go'ay ilaa ay Canab tiri. Walaal, bakaylihii ma iska daayeen? Sahra oo isxajinaysa ayaa Farax ku dartay. Wax yar kadibna iyaga oo isdaba ordaya ayay bannaanka joogaan. Canab way aamusan tahay. Labada kale hawada ayaa laabtooda ka dhammaatay. Hadal kuma jiro. Halkan ayay qosol kaayaysanayaan. Waa qosol ay dadku u arkayaan mid caadi ah, laakiin dhagaha Canab waxa uu ku yahay weydiimo kala kaan ah. Waa maxay meeshan aadna keentay? Bakaylihii mee? Goormaad aragtay cuntada aad sheegaysay? Qosolka ugu dheer ayaa uga dhignaa, maxaa adiga ku tusay meeshan? Caawa waa laga adag yahay. Go'aankuna wuxuu ku soo wareegay Sahra. Iyada ayaa go'aaminaysa halka la tegayo. Markii ay maqleen ayay madaxa isqabteen. Naayaa waa yeelkadiin ayay ugu jawaabtay. Jidka fidsan ee Oxbridge Road ayay hoos u soo qaadeen. Wax yar kadib ayay soo gaadheen. Tani safaano jecel ah ayay kolba hoos u leeyihiin Farax iyo Canab. Waa makhaayad ay Sahri aad u jeceshahay. Waa dooq ay labada kale ku dacaayadeeyaan iyada. Canab ha u darnaatee. Walow caawa aanay iyadu waxba ka sheegi karin dooqa dadka kale. Farax lafteedu aad uma necba. Hal sabab ayay u diidaa makhaayaddan. Waxa ay sheegtaa in ay habaryarooyinku ku badan yihiin. Waa oraah ay Sahri kaga jawaabto. Abtiyaal baa jooga caawe ina mari. Albaabkii koowaad ayay Sahri soo qabatay. Gacan ayay ku reebtay albaabka iyada oo ka kale gacanta bidix ku furaysa. Waxay uga gudbeen luuqii ay cagtoodu baratay. Hoos ayay ugu dhaadhaceen jaranjarooyinka iyaga oo si degdeg ah u dhaafaya ragga soo fadhiya dhanka garabkooda bidix ku beegan. Waa qayb ay markasta xuf ku dhaafaan inta aanay balaayada wardoonka ahi wejigooda arkin.
waa sida ay farax tidhaahdee. Balaayada wardoonka ahi waa ragga Soomaalida ah ee makhaayadda qaybteeda hore fadhiista, barta lacagta laga bixiyo. Waa goob ay kulleyba ku qasban yihiin imaatinkeeda si looga furto intii ay dhaqaale siteen. Imisa tihiin? 3. Hore u soo socda. Waa weydiin ay Sahri la yaabto mar kasta. Qofka arkaya inta aad tihiin oo haddana ku weydiinaya tiradiinna. Way dhacdaa inay mararka qaar ku jawaabto 20. Mar kastana run baa laga moodaa. Waa kaftan ay dareenkeeda ku dejiso. Caawa habaryarooyin badani ma joogaan. Mid laf hilib ah geeska ku fadhaysa ayay indhaha farax markiiba ku dhaceen. Miiskoodii ayaa la dul joojiyey. 3 kursi ayaa hareeraha ka kulaalaya. Dhanka barina gidaarka ayuu kaga dhegan yahay. Markii ay fadhiisteenba waxaa isbedelay midabkii maryahooda. Nalalka aan muuqan ee derbiyada raacsan ayaa shaqadooda qabsanaya. Kuwa caddaanka ah ayaa la naaqusay. Taasi ma ay celin indhaha Sahri inay arkaan qofka ku soo maqan. Miisas dhowr ah ayaa u dhaxeeya. Qolka oo dhan ayaa u dhaxeeya. Waa ay ka jeedsatay. Madaxyadad ayuu ka soo dhex daawanaya. Way eegtay, wuu ka jeedsaday. Tani waa sheeko Hindi ayay hoos u tiri. Labada kale iyaga ayaa isku maqan. Inta badan Farax iyo Canab way murmaan. Sidaas ayaana Sahra loo qaatay intii ay qasi lahaayeen. Xusuustiisu laabta ayay miisaan saa'id ah saartaa. Galabtana sideedii ayay ilmeynaysaa marka ay sii gelayso istaanka tareenka ee Tottenham Court Road Station. Hoos ayay godka xabaasha u eg ugu dhaadhacaysaa. Isla markaas maskaxdeeda ayaa dib ugu noqotay habeenkii wacnaa. Inta ay foorarsato ayay sugaysaa inta uu jeedsanayo. Markaas ayay degdeg u eegaysaa. Marka ay ku qabato isaga oo ku soo maqan ayuu naxayaa, wuuna jeedsanayaa. Way ka helaysaa. Hoos ayay u qoslaysaa. Dhoola caddayn ayaa bannaanka uga soo baxaysa. Waa mid ka duwan ta ay Farax iyo Canab wadaagayaan. Si aan loo dareemin ayay hadalka kolba meel dhexe kaga soo dhacaysaa. Ma rabto inay sii eegto ninkan isha ku xadaya. Hore way u soo aragtay rag aan ka jeedsan, mana aha eegmadoodu mid ay ku hodmayso. Caawase tani way ka duwan tahay. Waa eegmo asturan, ka imanaysa indho cabban, ku abuuraysa wax iyada ka weyn. Kaftan ahaan ayay u bilowday. Imika kama jeedsan karto markii uu sii jeedo. Maxaa ku haya? In badan ayay iska dhegatirtay codka uga imanaya kuwa halka taako uga dhow. Dhegtana u fidisay aamusnida dhowrka mitir u jirta. Haddii ay maqli lahaayeen waxa ay keligeed maqlayso, ma ay qashqasheen. Xarko aan la goyn karin, walow dhexdooda kolba la marayo ayaa isugu xidhan. Wax badan habeenka kama xasuusato oo aan ahayn isaga. Cunto ay cunaysay ma garanayso meel ay martay iyo si ay dhadhamaysay. Digaaggii ay jeclayd inuu ahaa unbay garanaysaa. Wax ay habluhu ka hadlayeen wallay ka tahay. Laakiin qofkan ay imika uun is arkeen sida ay nafteedu raallida uga tahay ayaa halxidhaale ku noqotay. Way jiraan qaar hore oo xitaa la hadlay. Waa lagu yaqaanaa inay tahay qof aan furfurnayn marka ay noqoto dhanka ragga. Qofba mar baa la helaa. Caawa iyada ayaa la qaatay. Habeenkaas 2 sano ayaa laga joogaa. Wax badan ayaana isbedelay. Jidkii habeenka dushiisa ay cagaheedu ku dul ciyaarayeen, galabta iyaga oo culus ayay kolba mid dul dhigaysaa. Makhaayadii lafteeda ayay hormaraysaa. Dhalinyaro kale ayaa saf ugu jira inay galaan. Waa meel ay 2 sano ka hor maraysay. Indhahooda dhalaal iyo rajo ayaa ku sawiran. Adduunka wax dhiba lama tusin weli. Bartii ayay hoos ugu dhaadhici doonaan. Lama ay yaabin. Wax ka weyn ayay ku maqan tahay. Waa halkii ay Mustafa isku barteen. Waa halkii ay habeenno badan kula caweysay iyada oo uu horteeda yaallo saxnigii ay u jeclayd dheriga meesha lagu kariyo, Savannah chicken. Jidka xusuuso badan ayaa ugu duugan. Kuwa ay rabto inay ilowdo. Si qalbigu uu doonayo jiritaankooda. Waa waxyaabaha yaryar ee ay ka haysato nolosheedii hore. Uxbridge Road waa dariiq nolosheeda ku maran.
dhanna aan uga baxayn. Haddase iyada ayaa ka leexatay. Waxa ay midig ugu laabatay jidkii gurigooda, Abdalla Road. Sekeda ayay hoosta ka soo tirisay. Waa halkii ay ku dhalatay, kuna barbaartay. Caleenta dhirta ku soo korodha ayay ka warhaysaa iyada oo aan isku dhibin. Tallaabada ayaa u tirsan, barta tuurta leh iyo halka tarbiicada lehba. Waxaa geeska u soo xigaa guriga reer Xuseen, oday ay codkiisa ka baqato. Walow uu si qabow u salaamo, haddana way ka naxdaa marka uu la hadlo. Malaha waa garhkiisa cas ee weyn, laabtiisa ballaadhan iyo tusbaxa aan gacantiisa ka bixin marnaba. Weli ma ay garan sababta. Waxaa ku xiga Sacdiya iyo 3deedii carruur ahaa, Ilhaan, Amran iyo Khadar. Nasiib wanaag maanta daaqadda ma taagna. Haddii ay arkaan, waxa ay ku qasbayaan inay gurigeeda u raacaan. Galabta ciyaal ay ciyaarsiiso ma karayso. Iyada ayaa u baahan cid u heesta. Guriga saddexaad wuu madhan yahay. Mid Bakistaani ah ayaa iska leh oo sida uu doono ka yeela. Kolba qof uu ka kireeyay ayuu 7 kadib ka saaraa. Waxaa ku xiga guri ay baryaha qaar adduunka ugu jeclayd, iminkana uu ah uun meel ay u hoyato. Waa gurigii ay ku dhalatay, lambar 88 Abdalla Road ama 88 Abdalla Road. Waa sida ay dadku ugu dhawaaqaan. Waa dhawaaq in badan ka qosliya Sahra. 6 kaabadood ee hortiisa ah ayay cagta bidix hoosta kaga soo bilowday, tamidigna ku dhammaysay. Waa dabeecad ay leedahay. Albaabkii ayay fure ay haysatay ku riixday. Guri in qarni ku dhow soo taagnaa, in ka badanna sii jiri doona. Urtii gurigooda u gaarka ahayd ayaa markiiba xubnaheeda dabcisay. Waxaa la socda codkii qabowgu ku dahaadhnaa. Hooyo, Sahra, ma timid? Waan ku soo wacay, maxaad iga qaban weyday? Waa ayaya xaali oo inta taaggeeda ah soo tallaabsanaysa. Maan maqlaynayeeyo, ay u celisay. Ma hubto inay codka gaarsiisay dhagaha xaali ee sida wanaagsan wuxu maqla. Wayse hubtaa in jawaabtaasi aanay run ahayn. Hooyo kaalay oo xun, digaagiyaad jeclayd ayaan kuu kariyey. Dharkii dhaxanta iyo kabihii ayay kaga dhaqaaqday halkii ay taagnayd. Albaabka qolkeeda oo ah kan u soo sokeeya marka jaranjarooyinka kor loo fuulo ayay degdeg u gashay. Albaabkana si aan caadi ahayn u soo xidhay. Ayaya xaali ma ay yaabin. Waa maalmihii ay sida noqon jirtay. Shalay caadi ayay ahayd. Maalmo aan fududayn ayaa u soo socda. Mar haddii ay bilaabanto, 2 toddobaad ayay sidaa ahaataa. Alaabtii ay ka dhaqaaqday ayay kala habaysay. Deedna qolkii fadhiga ee sijaayadu u taallay ayay ku noqotay. Una diyaar garowday inay 2 saacadoodba mar albaabka Sahra soo yara garaacdo si ay ugu qanacdo mayda ay jawaabta u heli doonto marka ay weydiiso inay cunto rabto iyo in kale. Cutubka 3. Maryan. Inaga bax ajnabigii. Inagii ayaa maanta la inoo kala tegay. Nimay ku hadhay ayay hawle haysaaye. Waxaa hadalka guntiisa uu yahay. Bisha Julaay 1 in aynu dawlad ahaano, si aynu walaalaheen Soomaaliya isu raacno. Waa erayadii uu 4 cisho ka hor lahaa, weli dhagaheeda ayaa u qaadan la. Waanay ku soo celceshanaysaa codka Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. Xor baynu nahay maanta. Intii ay garaadsatayba, dareenka xornimadoonka ee dabayshiisu markaas socotay ayay la kacday. Waxa ay kacaantay dunida oo markaas uun dagaalkii 2 faraha kala baxday, welise uu dhiiggu qoyan yahay. Waxay maqli jirtay Ingiriis iyo Talyaani ayaa berbera isku laynaya. Nin caddaan ah oo talinaya, markastana la hadal hayo ayay taqaanay. Sida ay noqon doonto noloshu marka ay dadkeedu tashadaan, ma ay ogeyn, wayse u riyaaqsanayd. Taas kumanaan qof oo ay shalay la dabaaldegaysay ayay kala sinnayd. Weli codkeedu saafi ma aha. In badan ayay qaylisay. Boorkii beerta xorriyadduna weli kama uu dhammaan cagaheeda. Ma aha maalin waxaas hoos loo eego. Hargeysa oo dhan ayaa bannaanka joogtay. Waa la hadlay oo la heesay. Keli ah waxaa la sugayaa
inta ay bishu ka dhammaanayso si nolol kale loola bilaabo walaalaha Soomaaliya. Haddii haasawe loo dhaqaaqi lahaa, waa xilligii ku habboonaa. Taasna Maryan ma garan la'a. Waa ay jireen dhalin ay iyada isku da'yihiin oo siyaabo kala duwan ula kaftantay. Wax si cajabiya kuma ay soo kordhin kuwaasi nolosheeda. Ma rabto wiil, waxay rabtaa nin aftahan ah, reerkoodu ladan yahay, markuu socdana shimbiruhu istaagaan. Waa sida ay tiraahdo ragga kuma degdegto inay la hadasho ma jecla, kuwa la hadlana kama hesho. Kii ay la noolaan lahayd in uu reerka u iman doono isaga oo geenyo wada ayay ku qanacsanayd. Nin in ay heli doonto shaki kagama jiro. Sidii walaalaheed Xaliimo iyo Weris loo guursaday oo kale in loogu soo geed fadhiisan doono waa ay ogeyd. Kaliya waxa aanay isweydiin ma ka heli doonaa qofka. Way rumaysnayd inuu jacaylku bilaabmo guurka kadib. Wax beeniyana Ilaahay ma tusin. Hooyadeed Cawrala oo qarnigii hore ka wadata dhaqanka ayaa sidaa ugu sheegtay. Aabaheed Quule ayay ku kalsoonayd maalkiisa iyo magaciisa. Reer Quule waxa ay ku jireen dadka ugu ladan magaalada. Waxa uu gurigoodu ku yaalay bartanka magaalada. Aabaheed Quule waxa uu la shaqaynayay saraakiisha Ingiriiska. Kadib markii ay caasimadda ka soo wareejiyeen magaalada Berbera, una soo wareejiyeen Hargeysa. Waxa uu markii dambe ahaa ardaydii Ingiriisku tacliinta u dhigay, qaarkoodna lagu xaman jiray inay gaaloobeen. Quule waxa uu ahaa oday la yaqaano, dadkuna talo weydiiyaan. Waxa uu la soo shaqaystay masaaridii dalka joogtay. Intii aanu Cawrala guursanna Hindida ayuu Berbera kula xoogsan jiray. Reerka carruurtiisu waa 3 hablood, Maryan iyo 2 ka waaweyn oo haatan la qabo. Cawrala ayaa aad uga warwartay bixitaanka Ingiriiska lagu qasbay, kana fikiraysay saamaynta uu reerkeeda ku yeelan doono. Dhowr jeer oo ay isku dayday inay odaygeeda kala hadashana uu ka dhaqaaqay markii ay afka furtay. Ma uu ogolayn inay badaha noocaasa gasho. Waxaaskiisii ma adkaysan karto. Waxa ay in badan dareentay in uu isagu warwarayo. Waxa ay digniin u aragtay hurdada uu maalmaha qaar ku raago, hadalka oo uu goosto, iyo qaylo aanu lahaan jirin oo ku soo badanaysa. Walow ay sidaas tahay, isagu waxba uma sheegi jirin iyada. Maryan galabtii iyo habeenkii oo dhan waxa ay bartamaha magaalada kula caweynaysay abwaanada dhalinta yar ee u kala dheeraynaya ammaanta calankooda cusub ee xorta ah. Waxa ay garabkooda ku taagnayd rag iyo dumar aad u jibaysan oo midba mar kacayo, heeladuna aanay kala go'ayn. Laydha socota ayaa hakanaysay marka ay golaha soo gasho si ay uga sii luudo, iyada oo aad moodo in qasab lagaga kaxaynayo codka Maxamed Yuusuf marka uu hal maandeeq la yidhaa u heesayo. Habeenkii saqdi dhexe markii ay bishu 26 noqotay, dhulkeediina xoroobay, ayay gurigoodii dhuumasho ku soo gashay. Quule oo daaradda dambe ku cadayanaya ayaanay iska eegin. Dhegaha ayuu goostay. Way fahmi weyday sababta. Dhallaanka xaafaduba way wada maqnaayeen. Iyadu xilli hore inay soo hoyatay ayaabay soo aragtaa. Waa ay garan weyday waxa aabaheed ka qaylisiiyey habeen farxadeed, iyo sababta uu isaguba u tegi waayey golaha ay magaaladu ku dhan tahay ee guriga dhabarkiisa ka jira. Hooyadeed ayaa dejisay Quule, iyadana xaraysay. Hooyo, dadkoo dhan ayaa maqanay, maxaa dhacay? Aamusooyo. Baryahanba aabbahaa sidan ayuu ahaaye. Seexo imikana oo ha istusin dhowr cisho. Wixii xalay dhacay haddii uu aabaheed ogaan lahaa, sabab hagaagsan ayuu heli lahaa. Balse iyada uunbaa og. Kolba way yara qoslaysay ilaa intii uu waagu baryay. Waxay soo xasuusatay sababtii ay faraheedu la gariirayeen, sababtii ay kolba u foorarsanaysay. Markaas ayay dhinaca kale isu rogtaa. Xaamud ayuu ahaa. Ciyaartiisu way wacnayd. 2 jeer oo uu khalad galay marka laga reebo. Mar ayuu wareeg saa'id ah sameeyey. Way ku qosashay. Isna ciyaartii ayuu dib ugu noqday. Wuu u sanqaday si ay ciyaarta u soo gasho. Hoos ayay u qosashay haddana. Miskiinku ma oga inay reer magaal tahay, dhankanna lagaga fiican yahay. Waxba markaa isma ay odhan.
indhaha ayuunbaa ay iskala socdeen. Markii uu ciyaarta ka baxayay ayuu dhankeeda u soo booday si aan loo fahmin. Wuu garab istaagay, ma ay eegin dhankiisa. Isna sidoo kale. Sacabka ayaa ahaa dhawaaqa keli ah ee ay isu gudbinayaan. Labadooduba ciyaarta ayay ku jeedaan, ka giijinayaan kuwa ku jira, gaarna way isaga warhayaan. Magacaa ayuu ku xaday. Maryan. Goor ay tiri ayay garan weyday. Magaca walaasheed ayay isticmaashaa caadi ahaan. Adna Xaamud. Ciyaartii ayaa go'day. Codka kuluc ayaa yeedhay. Qoyaankii roobka ee galabta, kulaylka jirkeeda ka soo baxaya imika iyo hawada dhadhanka macaan ayaa ku kulmay. Aroorta kaale goobta dhaarta. Bes uu ka dhaqaaqay. Badweyn dad ah ayuu dhex galay. Waanu ka libdhay. Ma ay rabin inuu tago. Joogna ma odhan karto. Laakiin sidee ayaan aroorta u helayaa? Kumanaanka qof sideen uga dhex garanayaa? Dharkii shalay ayay ku baxday subaxnimadii. Garbasaarta ayaa madaxa barhkiisa dambe uun saaran. Waa ay ka dhacaysaa, mana doonayso inay soo qabato. Bartii ballantu ahayd ayay timid. Xaamudse ma aragto. Way dhex jiidhay dadkii. Safka horena soo istaagtay. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la dhaarinayaa. Codkiisa ayuunbay maqli jirtay. Xor baynu nahay maanta. Waa isagii. Kitaabka ayaa gacanta loo saaray. Hoos ayay ugu ducaysay. Wejigiisa rajo ayaa ka muuqata. Inuu ka dhabeeyana waa uu u dhaarsan yahay. Khudbaduhu waa ay badnaayeen. Iyaduna Xaamud ayay raadinaysay. Isla markaas waxaa ra'iisul wasaaraha cusub lagu wareejinayaa askartii Somaliland Scouts. Labiskooda dhulka u eg ayaa indhaha dadka soo jiidanaya. Kuweeduna halkaas ayay ku maqan yihiin. Waa rag dhalinyar ah oo dherarka ka siman. Dhammaantood madaxa ayay kor u hayaan. Cidna iyagu waxba uma oga. Himilooyinka iyo riyooyinka aad moodo in loogu ballan qaaday rumayntooda ayaa wejigooda dul dhooban. Maryan oo qiiraysan ayaa kolba mid eegaysa. Dadkeedu xorriyadda uu helay. Ninkii caddaa inuu ku hoos baxay ayaa qalbigeeda gilgilaysa. Markaas ayay ku naxday. Safka hore ayuu ku jiraa. Digtooni ayuu ku jiraa. Madaxana wuu taagayaa. Waa Xaamud.